madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya mudane Axmed Maxamed Maxamuud Silaaye iyo wafdi ballaaran oo ka tirsan golihiisa wasiirada iyo walibana marwada koobada ee qaranka Marwaamina Waris ayaa maanta soo gaadhay magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer waxaana laga hortagay madaxweynaha iyo wafdidiisa uu hogaaminayo degmada Qoyta oo ilaa u jirta magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer waxaana loo soo galbiyay madaxweynaha iyo wafdidiisa gudaha magaalada Burco waxaana wadooyinka waaweyn iyo sharaaciyada magaalada Burco aad ku arkaysay isla markaasina ka qayb qaadanayay soo dhaweynta madaxweynaha Axmed Silaaye ardayda dugsiyada hoose dhexe sare iyo walibana macallimiintooda iyo walibana shacabweynaha kala duwan ee ku dhaqan magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer waxaana madaxweynaha ku soo dhaweeyay magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer gudoomiyaha gobolka Togdheer mudane Axmed Cumar Xaaji Cabdullaahi Xamarji iyo walibana waxaana door weyn ka qaadatay soo dhaweynta madaxweynaha dawladda hoose ee degmada Burco ay hogaaminayaan maamulka dawladda hoose ee degmada Burco waxaana uu madaxweynaha Soomaaliya mudane Axmed Maxamed Maxamuud Silaaye uu soo gaadhay goobtii loogu talagalay oo ahayd goobta guriga martida ee magaalada Burco halkaas oo madaxweynuhu salaan sharaf kaga qaatay cutubyo ka tirsan ciidamada qalab iyo walibana ciidamada baamboyda Somaliland magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer waxaan ka maanta wadashada wargeyga madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya mudane Axmed Maxamed Maxamuud Silaaye kaasoo umadiisa iyo bulshadiisa iyo dadkiisa iyo wadankiisa iyo mashaariicda horumarneed ee gobolka ka socdana inuu inoo furo qaarna inoo dhexdhigo heshihiisa iyo kurbadka meeshiisa halkaan mudane madaxweyne waxaad kusoo dhawaataa gobolkii Togdheer magaalada xadiisii Burco oo gacmo furo shacbigeena iyo dadweynaha kusoo dhaweynayaan waxaana goobtaasi ka hadlay madaxweynaha Soomaaliya mudane على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله تعالى وسطنا سعدنا كل يوم يشرف له إنه يوصل إلى قبر التقدير إلى أن كان خروج قبر كسوق لي إلى أن كسر الأيام وأن يمنع كبر خطأ ويخرج عود ويكبر له أيام يوصل إليه هذه آبا وكما ذكرنا مع شعب الغرب والعرب قبر من ومن قال الخصوصية ويعرضون السكولية ويتحلقونها ويتحلقها وتقررونها هذه آبا وكما نصر في عام وصول si kastaba ahaatee socdaalkani ballaaran uu madaxweynaha Soomaaliya mudane Axmed Maxamed Maxamuud Silaaye uu ku yimi magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer ayaa waxa uu kaga soo kicitimay magaalada Berbera ee caasimadda gobolka Saaxil kaasi oo hoyday habeennimadii xalay ahayd waxaana laga yaabaa inuu madaxweynuhu u sii dhaafay magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer gobolka Daadmareer gaar ahaan xaruntiisa magaalada Oodweyne Khalid Axmed Maxamed wararka magaalada Burco